رئيسul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku amray wasaaradda maaliyadda inaysan bixin karin lacag uusan isagu saxiixin isla markaana aan ogolaasho looga haysanin. Warqadda amarka lagu bixiyay oo loo diray wasaaradda maaliyadda 9kii bishan inuu ku guda jirno ee September ayaa waxa sidoo kale la ogeysiyay xisaabiyaha guud, gudoomiyaha bangiga dhexe iyo hanti dhowraha guud ee qaranka. Raiisul wasaaraha ayaa sidoo kale si gaar ah u xayiray in ogolaasho la'aantiisa la isticmaalo lacagta hay'adda IMF ee qoondada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo yaqaano SDRS. Roble ayaa sheegay in iyada oo laga ambaqaadayo marxaladda kala guurka ee dalku marayo iyo baahida loo qabo in taxadir dheeraad ah loo yeesho hanaanka kharash bixinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo isticmaalka qoondada lacagta hay'adda IMF ee SDRS uu amray wasaaradda maaliyadda ee ay warqadaani sida tooska ugu socoto qodobadan in aan la bixi karin wax qarasha nuuci uu doono ha ahaadee ilaa ogolaasho laga haysto raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha, raashinka ciidamada, mashaariicda iyo wixii kale ee qarash lagama maarmaan u ah adeega dowladda waa inay marka ay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu waajibaadkooda shaqo ay gutaan ogolaasho ay ka helaan raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inta aan la bixin wax lacag ah. wax lacaga lama soo qaadi karo qoondada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee lacagta hay'adda IMF ee loo yaqaano SDRS iyada oo aan ogolaasho laga helin raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. ma jirto wax kale oo isbedelay shaqada hay'adaha dowladda ee warqadani ku socoto. talaabada Roble ayaa sii xoojinaysa khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo raiisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku aadan kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo xilka qaadistii agaasimihii hore ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyadoona kulan xalay dhex maray labada mas'uul uu ku soo dhamaaday fashil kadib markii Farmaajo go'aan uu ku gaaray inuu soo magacaabo taliye hogaamiye nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya iyo inaan la baarin kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo Nisa looga shakisan yahay.